سؤال شكوى بتونات وحسائل كانوا لي حاسك يجيبان وقال الماضي مع النمر رمضان كفارة دينا ونأودي وايي ما دام أنا العج هينين صون كينا ويقعد كذا لبض بلاد محيلية سؤال شعكتا مقعيق السامي بلا يرابو يري رمضان أيان صلاة المغرب بلا نوع إضامي وأنا أفري كدب ديارات أيان راعي عد ديبا أن هذا نديبو أرقني مالك قليه سي ميال يقول لي هي إلهي درادينا وانكوش على يقول الشيخ سؤال صدح تبناد دawada isha laga qaato iyo dawada dhagta laga qaataa soonka ma jabinayaan wax ma yeelayaan su'aasha 14aad waxa saa'ilku leeyahay waa gabadh waxaan ahay gabadh uur leh bishii 9aadna waan ku jiraa inaan sooma waajib miyay igu tahay su'aasha 15aad magacayga saamiye ayaa la yiraahday tiri garoowe ay ka soo qortay qofku inuu isticmaalo dawada xiiqda isagoo oo sooman soonkiisa wax ma yeelaysaa سؤال اللي حطمناد وحسائل كانوا لي هي أيا وحن كواف رابوري سيجار مركان سحورنا ينا وحن كسي سحور تابوري شاه يسيجار صون كيجو ما صحيا سؤال التضوي حطمناد وحسائل كانوا لي هي دوّد عضيقة اللي استعماله صون كوحمية اللي سمع لنا رمضان سؤال حكتا وحسائل كانوا لي هي qofka in kaliyaha loo meeraa soonkiisa wax ma yeelaysaa su'aasha xigta waxa saa'ilku leeyahay hadii qofku gororo soonkiisa wax ma noqonaya saa'ilka xiga wuxuu yiri magacaygu waa Maxamed Hargeysa ayaan ka soo qoray waxaan ka shaqeeyay buu dhismaha 10 saacadood oo xiriir ayaan shaqeeyaa waana shaqo adag diintu ma iibanaynaysaa intaan iska afuro bishan Ramadaan jiilaalkii ina aan qalleeyo su'aasha 20aad waxa saa'ilkan uu leeyahay qofku inuu istoobo ama dhiigu shubo maalinimada Ramadaan soonkii wax ma yeelaysaa barakallahu fiikum su'aasha oranaysa anigoo sooman baan xaaskii u galmooday inaan labadii bilood soomana ma karayo inaan raashinkii bixiyana ma karayo maxaa yeelaa horta marka hore inaad ogaan ugu galmootaa waa dembi weyn inaad u kasto oo bisha Ramadaan xurmadeedii intaad jebiso xaaskii aad ula qasado galmo maalin cad dembiilo weyn baad horta waxa ku cadaynaya kafaara gudka lagu saaray laba bilood oo isku xiriirsan baa lagu dhisoon hadaad kari weydana 60 miskiin dargi halkaas aad ka garanaysa kafaaratul udma wa kafaaradii weynayd baa lagu saaray marka qofku waa inuu iska ilaaliyaa jimaaca iyo galmada noocaas iyo wixii u jiidaya taabashadii la seexashadii ku dhawaanshihii waa inuu ka fogaadaa haday dhacdo qofkii kaba dhacdana kafaaradiina uu kari waayo labadeeda nooc raashinkii ma karayo mana soomi karayo isagoon hakrasho lahayn waxba laguma leh qofku markuu wadan tegayo wadanna ka baxo keebu ku afuraya halka qoraxdu ugu dhacday buu ku afuraya halkan aad ka kacaysa hadii ay kuugu dhacday qoraxdu iyada ku afur hadii hawada kuugu dhacday hawada ku afur halkaad ku socotay haday qoraxdu kuugu dhacday halka ku afur ila ilaahay waxa uu yiri subhanahu wa ta'ala thumma atimmu siyama ila al-layl soomka wada ila habeenkii aad gaarayso habeenka ama cirka ku gaadha ma dhulka meesha joogto habeenku uu kuugu damayun soomkii ku soo afjar marka qoraxda iyo waxa wada socda soomka marka ay damtida meesha doonto jooga halkaas aad ku afurayso su'aasha kale waxa weeyaan dhibicdan dawadan indhaha lagu dhibqiyo ama sanka lagu dhibqiyo ama dhegta lagu dhibqiyo xukunkeeda iyo soomka way yara kala duwan yihiin isha culimo badan waxay qabaan ama u badan yihiin daroobiska iyo dhibcaha lagu dhibcinaya inaanay waxba yeelayn laakiin sanka iyo dhegta kuwa lagu dhibcinayo qofka sooman waxay u badan inay jabinayso sidaa daraadeed inaad iska daysaa wanaagsan
rasuulku sala allahu calayh wasalam asxaabi buu u sharxayay weysada oo wuxuu ku uhi wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman xadiidkii saxiixa sandaarsiga fiifdha biyaha inaad soomantahay mooyaane haddaad sooman tahay fiifa odhanoo ha ku xeel dheeraanne waxaa laga fahmay in uu biyaha sanka galayaa soomkii wax yeelayaa marka dhagaha iyo sanka ka daa laakiin isha waad ka isticmaali karta ruuxa dumar ahee sooman aan idhaahdee uur kale ama ilmo jaqsiinaysa hadday cunnada u baahato bisha ramadaan waa la isku waafaqsan yahay inay cunayso waxaana loo badan yahay inay soo qallaynayso qowl naadira baa wuxuu leeyahay raashin bay bixinaysaa maalintiiba kiilo bariis sida qofkii weynaayoo kale laakiin qowlkaa culimmadu uma badna qowlka loo badanya waxa weeye qof kasta oo sanadka aakhirkiisa ama dhexdiisa soo qallayn karaa inuu soo qalleeyo marka waxay la mid tahay qofkii musaafirka iyo kii bukay oo kale markay umusho ama ilmihii ka guriso ama caanihii uu ka maarmo uu cuni karo ha soo qallayso bilo badan iyo isla sugin dawada xiiqda bakhaaqda baashan la ydhaa la ysku buufiyo dhib ma laha waa sida hawada aynu cabbaynoo kale waa la isticmaali karaa toobinkii iyo dhiiggii la shubayey miyuu waxyeelayaa soomkii waa masale khilaafiya culimmada qayb baale wuu jebinayaa in badanoo ka midiina waxay leeyihiin ma jebinayo axaadiidta ku soo arooray bay qoloba mid daliishanayaan mar haddii la isku khilaafay inaad iska daysaa fiican oo aanad maalintii istoobin dhiigna iska shubin iyadoo weliba la ogsoon yahay qofka haddii dhiig laga shubo ama la toobo inuu daciifayo oo dhici kartaba soomkii inuu jebiyo marka habeenkii dhiigga iska shub habeenkiina istoob masaa'ilka arrimaha lagu murmayna ka daa oo maalintii waxba ha istoobin dhiiggana ha iska shubin su-aashan kale ah dawadan macjuunka ee lagu cadaydo miyay jebinaysaa haddaanad liqin maya haddaad ku cadayato subaxdii ama maalintii ood awoodi karaysa inaad macaankeeda iyo dhadhankeeda afka ka dhammaysa dhib ma leh haddaad laakiin liqayso dee way kaa jebinaysaa soomkii sidaa daraaddeed waxa fiican suxuurta intaan waagu baryin inaad ku cadayato macjuunka maalintiina cadaygan kale ee aan macjuunka lahayn aad iska isticmaasho su-aasha kale waxa weeye gororka ama samboorka dhiiggu uu qofka sanka ka yimaada ama jidhkaba ma ka jebinayaa soomkii masaladaa hore aynu ku soo sheegnayoo dee waxaaba culimmada in badan ay qabeen kii aad iska keentay inaanu kaa jebinayn laakiin dhiiggii daran la kaaga yimi isaguna ma jebinayo su-aasha kale odhanaysa qof shaqaalaa baan ahay oo shaqo aad u adag baan hayaa ma iska afuri karaa maadaama shaqadu ay kulusha ama meel kululaan ka shaqaynayo maya waad soomaysaa inna lilcibaadati mashaqa cibaadadu waxay leedahay mashaqa mashaqadaasi waa culays culayskaasi waa xil lagu saaray xilkaa waxaa lagu tijaabinayaa addoonka bal inuu ogol yahay addoonnimada iyo inuu afka taago marka salaadan hawsha inagu ah iyo weysada iyo xajka iyo soomka la gaajoonayo waa mashaqadii caadiga ahayd ee cibaadada marka mashaqadaasi waad u bareeraysa adigoo shaqadaada wata inaad soomto laakiin idaa kaanat almashaqatu hayra caadiya falaka rukhsa mashaqadii haddii ay heerkii caadiga ahaa dhaafto oo aad kari kara weyda soomkii oo gaajadu ay kugu badato ama haraadku adigoo shaqaynaya waad iska cuni markaa oo naftaada halaagi maysid laakiin ma odhanaysid shaqo adag baan hayaa waana furaya ee shaqadii adkayd wad soomkiina wad haddaad xejin kara weydo naftu ku qabato dee ilaahay wuxu uhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima ilaahay uu idin naxariisanaya naftiinna halaagina waad iska afuri shaqo looma daayo soom iyo salaatoona su-aasha odhanaysa toobinka iyadana hore aynu usoo sheegnay toobinkii iyo gororkii iyo dhiiggii la isku shubayey jawaabtooda way noo qadinay wallahu aclam taasi waa nacasnimo weyn nin soo soomay oo ku afuray xaaraan oo habeenkii soo cibaadaystay salaaddii oo ku suxurtay xaaraan sigaarku wuxuu la mid yahay uun haddii aynu dee sawirka soo yaro dhoweyno adigoo intood soontay xaafadda jaarkaaga u wareegayoo afurkii ka soo xoogay afurkii baad kijinkooda intaad gashay iyagoo qaylinaya xoog kaga soo qaaday markaasaad tidhi bi'i waaye waan baahanahay dee waan ku afurayaa la socda intaa
والنوعاس وكلام حاران تاسد هذول اللي يوربي واري وسوي كيس ومنا محاولة سوي كان حاران تكوا أفري سيجار كنا والله من مركا إسكده قف كوانو حاران تكسوا مع مركا عبادة لا إيمانية هراي نص شيء والله أعلم